maaha meel carabi iyo tarbiya iyo ingiriisi qura lagu dhigto waa meel lagu barto hibooyinka iyo ku jira waa meel lagu barto hadaad qoraan tahay hadaad sawirka ku fiican tahay hadaad gabayga ku fiican tahay waa meel lagu barto hibooyinka oo lagala tagay hibooyinka maantayro kooban baan doonaya inaan idin akhriyo kolkaas maanta magaceedu waxa la yidhaahdaa dallahaansho sida waxa loo ansaa Dubai kuma lihi cimaarad ma lihi daaraha Mareykan ma dega xeebaha Miami دهران كما قدو سليدة تعلم فلبين ما آدم تكلا لما كورين إسبانيش اتكلا أمد ضو وحيدة وحان هيروت تنكيسة بالقاعدو لغور تحجوغا فوقيا ديري دهاران دارها النروي كيالا كمان دورتين هبيننا خرابة دنتو كتالا دامي شعب جاكيسة danqalnaanta uurkaagan qadaydhanu higoodkaaga dhafandhaaf ujeedadan la gabay kala dhantaalnaanta isxaq dhowrka noloshan ku dhafay intan dhagaaraysay waagii aan dugsiga sare ku jiray maan xiisayn jirin wax allaaliya wax la tacalluqa suugaanta ama gabay ha ahaato ama sheeko ha ahaato ama maadada Soomaaliga wax allaaliya wax suugaanta Soomaaliga la tacalluqa ma xiisayn jirin kolka maalmaha kamida baan helay jiraayid yaal xaafada marka waxa ku qornay tix dheero Soomaaliya dabay tixdii baan akhriyay tixda marka ereyada ku qoran ma fahmeen humaageeda ma fahmeen ujeedkeedana ma fahmeen se waxa xoogii soo jiitay siiqada ama habdhaca ama godka ay tixdu ahayd waan ku celceliyay muddo 12 cisho abaan kaligeed haystay dabadeed waxa ay soo jiidatay qaabada ay u dhacayso waxaan isula yaabay sida aanan afkayga u garanayn iyo ma garanaysaa da'da aan jiraan la yaabay iyo sida ninku waxaan uga hadlay aanan midna uga fahmayn iyo quruxda haddana ay ku qoran tahay iyo sida ay muddada dheer iga tahsoonayd kolka waxa dhacday inaan tixdii qaybo anigoo fahmayn hada ujeedkeedii anigoo fahmayn ereyadii ku qornayd ayaan gebigeedii ba qaybay kolka erey kasta oo igu adkaaday hoostan ka calaamadiyay kolka waxa xaafada timi maalinta islaan hooyaday aayo ah oo miyiga ka timi islaantii baan ka dabadeed jiraa'idkii la hor fadhiistay islaantii baa dabadeed maalinba xabada ii sheegta ereyga ii sheegta beedka ay micnaysa tuduca ay micnaysa muddo bila markaan jiraa'idkii haystay baa waxa dhacday inaan maansada gebigeedii 90% xifdisanahay garanayna ujeedkeedii dabadeed waxa dhacday inaan isri warad bood samayn karaysaa maansada caynkan oo kala ah samee mid tan lamida meel allaaliya meelan ka bilaaban waayay ereyaan ka bilaaban waayay mowduucan ka bilaaban waayay wax allaaliya waxaan ka hadlaan dabadeed garan waayay dabadeed jaraa'idkii baan soo qaaday maansada aan akhriyay waxay ku socotay xarafka sa dabadeed waxaan bilaabay inaan sameeyo nimaanu saaxiib ahayn inaan tixdii u sameeyo dabadeed saaxiib iyo saadii baa isugu kay beegmay dabadeed tixdii ugu horeeyay sameeyaa waxay noqotay saaxiib maansada aawadeed la ajligeed maadaama maansadaasi saa ku socotay dabadeed waxa dhacday inaan maansadii bilaabo ereyadii maansada kale ku jirayna inaan ka soo deegto dabadeed halkii aan ku sameeyo maansa jajaba oo aanan xeerarkeeda garanayn laakiin ereyga ama xeerka quraan garanaya uu yahay in la raacayo oo beed kasta ay khasab tahay inuu ku jiro erey ka bilaabmaya xarafka sa tii baan ku waday maansayro jacbura oo iska saanqaadan dabadeed kolkaas sameeyay oo magaceeda saaxiib la yiraahdo kolka suugaanta gebigeeda inaan soo galo suugaanta gebigeeda inaan xiiseeyo inaan yeesho xaada dareemaysa farshaxanimada inaan yeesho ma garanaysaa maskaxda humaaga samayn karaysa kama soo hadho halkii ugu horeysay ee aad ka bilowday marka maansada aan akhriyay ee ay dhiiri gelisay ee suugaanta gebigeedaba ay soo gelisay waxay ahayd maansada dheer ee sirta nolosha la yiraahdo ee uu hadraawi leeyahay maansadaas runtii qofkii akhriyay baa garanaya waxay ka waramaysaa waxay taabanaysaa xaq kasta oo nolosha kamid ah waxay u tahay maansooyinka hadraawi waxay u tahay iba xid bay u tahay oo qaamuus bay u tahay maansooyinka hadraawi waana mid kamid ah maansooyinkiisa kuwaan ugu jecelahay waana kuwii soo geliyay suugaanta ninku siray ha faalaynin
sababana ha weydiinin ha u seeta dheeraynin hana sidin culayskiisa siriq iyo ku qababaydo hana falin siduu yeelay markuu yidhi anaa saasa ha ku odhan sidaas weeye sida uu ku yidhi heedhe haddii ay siniin weydo ama sarinsanaan weydo waxa furan sidaas maaha qof saluugay maankiisa ama suufay muuqiisa ka salkacay xaqiiqdiisa qabku saamin ladha maaha kolka halkii baan ka bilaabay halkii baa maansooyinkii aan ka sii waday maalinba maansaan samayn jiray mid jacbura magaranaysaa maalinba mid baan samayn jiray kolka wixii ugu badnaa la oran jiray waxa weeye intixaagu waxay u eegayeen intixaa hadraawi dabna way ahaayeen oo waxay xoog u ekaan jireen intixaa hadraawi waxa dhici jirtay marka maan aqoon halabuur kale halabuurada badan ama abwaanada badan haatan aqaanana maan aqoon waaga gibigayga waxay iga dhiganaan jirtay hadraawi dareenka uu hadraawi markaa ii sameeyay dareenka ay tixiisu ii sameeyeen dareenkaas dabadeed keenay inaan anna mid curin karo inaan anna isku dayi karo inaan halabuur kala naqdin karo anigoo unba garanay ujeedka u socdo halkii baan ka sii waday dugsigii saraan dabadeed ka baxay waxa dhacday dabadeed inaan xaflado waaweyn iyo waxyaabo noocaas qabtay ilaa markii waxay ahaayeen intixaagu saanqaad bay ahaayeenoo sidii baan u soo waday ilaa maanta oo aan idinla hadlayo waxa intixaaga laga dareemaa inay leeyihiin saamaynta hadraawi waxa laga dareemaa humaagyada qaar inay leeyihiin humaagyada hadraawi fac kasta ama faca qarniga 22aad ee soo kacay waxa dhiigooda ku jira hadraawism waxa la yiraahdo waayo hadraawi waa ninka qura ee isku xiray dhaqanka iyo siyaasadda waa ninka qura isku xiray dhaqanka iyo jacaylka wuxuu isku xiri karayaa oo humaa ka dhaxaysiin karayaa waxa uu magaranaysaa xidid ka dhaxaysiin karayaa laba shay oo aad u kala duwan hal abuurka haatan sidayda oo kale wuxuu fogeeyaa humaagooda oo adiga oo shay kale ku masaalayay hadraawi wuxuu ku masaali karayaa 5 shay buu hal shay ku masaali karayaa taasi dibad waxay keenaysaa fogaal aragnimo inay ku dhaxalsiiso taasi waxay keenaysaa tixdaada inay dareensiiso inay tahay tixiro laangaaba ay dareensinaysaa kolka qof kasta oo tixiisa akhriya qof kasta oo si dhugla u dareema mar kasta oo akhrido waxa dareemaysaa inay wax kale ku jiraan ilaa haatan hadii aan mar labaad akhriyo tixiya aan ku bilaabay waagi hore hadii aan mar labaad maanta akhriyo waxaan dareemayaa in waxaan markii hore ogeyn ay ka soo baxayaan waa tixiisu waa tixaqan gaara oo la qaangaarayay oo jacayl buu ka sameyn jiray oo la waayeelayay oo la dadaaran sameyn jiray waa tixaa la dagaal galay oo tixaa badan uu ku jihaaday baa ku jira waa tix la koreysay waa tixaa dareemayso inay qofkiisa la koreysay oo markii uu soo koreeyay ee uu dhalaanka ahaa ee uu qaangaaray jacaylku sameyn jiray markii dambe uu dagaalka galay tixii dagaalka ku jira markii dambe uu waayeelay tixii dardaaranka haba ku jiray markii magaranaysa nolosha caadiga tixiisi nolosha haba ku jiray waa tixaa dareemayso oo hadii maanta la isugu ka soo xiray tixdiisii u horeysay ilaa tixdiisii u dambeysay hadii la isugu ka xiray waxa dareemaysaa inay tahay cimri qof waxa dareemaysaa inay tahay cimri hal abuur waxa dareemaysaa inay tahay cimri abqari oo ku noolaa kuna soo dhex kolay dadka Soomaalida qablayo sidee waay البحر ما بصاص معها هذا صوف كركرة معها سرارها بني معها قرقر سونية معها قبلنا سباق معها سنك أول مدى معها صخرة حشيش معها ثوري رياض معها فيلم سرعاد معها سحر القلبين معها خبص سوق الدير معها سوريا دردورة معها سرسلون عسكري معها قفص اللون كدايا معها وحسا وابن نقو معها سنتا إيا رفا دودك فتح قوت شبي معها